mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo hub aruursi ka bilaabay magaalada Muqdisho xilli madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu hanjabaado kala duwan oo u diray madaxda ugu sarreysa ee dalka haddaba maalmaha soo aadan maxay tahay tallaabooyinka ay qorsheynayaan inay qaadaan mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana la filayo in uu gaaro magaalada Muqdisho isagana waxa uu sidoo kale uu diyaarinayaa qorshe markaasi looga shaqeyn lahaa badbaado qaran labo taasi oo markaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaga si gaar ah u diyaarinayo ciidamo fara badan ayuuna sidoo kale waxa uu qorsheynayaa in uu diyaarsado qorshahan haddaba yaa kala shaqeynayo sidee ayuu ugu dhiiraday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaynu dal wadaagi doonaa xaaladda gobolka Banaadir iyo tallaabooyinka kala duwan oo ay mucaaradku ay qaadayaan xilli madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu hanjabaad kulul uu hawada u marsiiyay dowladda hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii aynu ku bilowno mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay qorsheynayaan in maalmaha soo aadan ay markaasi ay diyaariyaan qorshayaal kala duwan oo la xiriira sidii markaasi loo diyaarin lahaa ciidamo kala duwan kuwaas oo ka hortagayo haddii markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isku dayo in uu sameeyo muddo kordhin ciidamadan ayaana si hoose waxaa looga qorayaa degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho halka markaasi xiriirro kala duwan lala sameynayo saraakiisha firfircoon ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale askarta dagaalyaqaanada ah kuwaas oo ay mucaaradku ay xiliyadan ay markaasi xulanayaan waxay askartani ay markaasi u ballan qaadayaan qaarkood xilal halka markaasi qaarka kalena markaasi loo diyaariyay iyagana in la siiyo lacago taasi oo la xiriirta in ay markaasi xilli kasta oo loo baahdo ay heegan ay noqdaan khudbadii uu jeediyay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaana sidoo kale waxa ay dhalisay dood iyo sidoo kale hadal hayn kala duwan xilli uu markaasi uu sheegay in cidi aysan marnaba awood dalka aysan ku joogi doonin taas oo markaasi uu la jeedo in ay tallaabo ay qaadayaan waxa sidoo kale uu sheegay in la fiirinayo oo kaliya muddo xileedka u harsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taas oo ah muddo markaasi 8 bilood ah waxa uu madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu buriyay dastuurka iyo sidoo kale xeerarkii kale ee dalka u yeelay taas oo ka hor imaanayso nidaamka siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale in markaasi la doonayo in la burburiyo haykalkii siyaasadeed ee dowladnimo waxa sidoo kale Shariifka uu ka hadlay hantida markaasi la boobayo ee markaasi ka socota degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in hantidii ay lahayd markaasi dowladda ay dad ganacsata iyo sidoo kale shakhsiyaad kale ay boob ay kula kaceen taas oo sheegay in iyadana markaasi laga hortagi doono waxa uu sheegay cid kasta oo markaasi ay samaysato in ay la wareegto dhulkaasi laga qaadi doono tallaabo sidoo markaasi uu sheegay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed mucaaradka ayaana sidoo kale kulamo kala duwan waxa ay markaasi ay ku yeelanayeen maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho tallaabada xigta ee qaadi doonaan ayaana sidoo kale waxay ku sheegeen in ay tahay tallaabo military iyo sidii looga hortagi lahaa in muddo kordhin uu sameysto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayayna sidoo kale mucaaradku waxay ku eedeeyeen in qaabab kala duwan ay markaas ula hadleen laakiin uusan ahayn qof wax fahmayo isagoona sidoo kale markaas qaadayo tallaabooyin kale oo ka dhanaa sharciga sidoo ay markaas mucaaradku ay sheegeen mucaaradka ayaana sidoo kale waxay sheegeen in dowladihii kale ee dalka soo maray oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga duwan yahay laba arrin dastuurkii oo markaas wax ka bedel uu ku sameeyay iyadoo aanan heshiis lagu ahayn iyo sidoo kale in uu markaasi uu ciidamadii qaranka ee loogu talagalay in ay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab lagu guray gobolka Gedo taas oo aanan qayb ka ahayn xeerarka iyo sidoo kale nidaamka dowladnimo ee wadanka waxay mucaaradku ay sidoo kale ay ka arrinsanayaan sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin kale oo waaweyn oo la xiriirta in markaasi dalka si awood ah looga saaro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii markaasi uu soo gabagabo muddo xileedka waxay sidoo kale mucaaradku ay diyaarinayaan ciidamo markaasi la sheegay in lagu daadinayo degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa ka go'an mucaaradku inay la dagaalamaan dowladda haddii markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan talada dalka dhulka uusan soo dhigin
madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariifka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in talada dadku ay ka dhaxayso sidoo kalena qofna uusan marnaba tallaabo qaldan uusan qaadi karin haddii uu qaadana uu markaasi uu la kulmi doono cawaaqib xumo iyo sidoo kale in lagu xisaabtamo tallaabooyinka qaarkood sida uu markaasi uu sheegay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed inkastoo mucaaradku ay markaasi dhowr qayb u kala jabeen ayaana sidoo kale waxa la sheegay Shariifka ay markaasi jiraan xubno mucaaradka ka tirsan oo raacsan halka markaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale iyagana markaasi ay isku dhinacay noqdeen Roble iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee isagana markaasi Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaana waxa la sheegay in iyagana ay gaar ay noqdeen mucaaradka ayaana sidoo kale kala jabay sida muuqanaysa iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi uu qaadayo tallaabadiisa markaasi la xiriira sidii loo kala furfuri lahaa halka mucaaradka qaarkoodna ay markaasi isagu ay taageersan yihiin dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagana waxa la sheegay in uu Muqdisho uu soo gaari doono maalmaha soo aadan isagana sidoo kale waxa uu diyaarsanayaa ciidamo fara badan waxa ku garab ah gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cumar Finish kaas oo isagana markaasi la sheegay in uu garab u noqonayo ra'iisul wasaarihi in uu garab u noqonayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana sidoo kale waxa la sheegay in arintani uu markaasi uu ku wajahayo sidii uu dhaqaale ugu kala furfuri lahaa mucaaradka qaarkood iyo sidoo kale ciidamada dowladda taas oo markaasi uu doonayo in uu kasbado halka markaasi la filayo in marka uu tago magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu jeediyo khudbado fara badan oo taabanayo xaaladda dalka iyo sidoo kale in uu markaasi uu cadeysto musharaxnimadiisa in uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee markaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana sidoo kale xilligan waxa la sheegay in uu isku xirxirayo durbaba qaybo kamid ah mucaaradka taas oo markaasi isbahaysi gaar ah oo isagana markaasi uu sameeysan doono taas oo kaga soo horjeedo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana markaasi waxa uu doonayaa in uu ka hortago mawjadaha mucaaradada ah ee ku soo wajahan tallaabooyinkaas ayaana sidoo kale waxa la sheegay in uu doonayo in uu qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh ayaana sidoo kale waxa uu markaasi aad ugu faraxsan yahay kala dhantaalka iyo sidoo kale kala qaybsanaanta mucaaradka ku yimid taas oo markaasi uu sheegay in uu markaasi aad ugu faraxsan yahay halka mucaaradka qaarkoodna markaasi la soo warinayo in ay si hoose ay isaga markaasi ula shaqeeyaan lama oga xaaladda siyaasadeed ee dalka sida ay noqon doonto todobaadyada soo aadan maadaama dabayaaqadii toddobaadkii hore shirkii u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda mucaaradku ay fashil ay ku soo dhamaadeen tallaabadaas ayaana sidoo kale waxay markaasi ay dowladda Soomaaliya ay u noqotay guul kale u soo hooyatay inkastoo war-saxaafadeedka mucaaradka ay soo saareen ay markii hore markaasi isku afgaran waayeen haddaba imaatinka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo todobaadyada soo aadan iyo sidoo kale isbahaysiga cusub ee dhawaan la filayo in magaalada Muqdisho looga dhawaaqo iyo mucaaradka sida gaarka ah ciidamada qaarkood iyo sidoo kale ay u qoranayaan waxaynu idin kula wadaagi doonaa halkan